السلام عليكم soo dhawaada asxaabtayda maanta waxaan rabnaa inaan ku hadalno concept yar oo ku saabsan maadada lagu yaqaan maadada la yiraahdo SQL maxaa loo soo gaabiyay saddexdan xaraf waxa loo soo gaabiyay structured query language oo macnaheedu noqonayo waa luqad qaab dhismeedkeedu yahay query marka gadaal baan ku arki doonaa waxa query laga wado marka maxay tahay waa luqad program oo loo isticmaalo maareynta iyo maamulidda xogaha ku jira kaydka xogta marka waxa la yiraahdaa waa database-ka waxay suurtagal ka dhigtaa in la kaydiyo la helo la cusboonaysiiyo lana tirtiro xogta si habsami leh waxyaalaha loo isticmaalo SQL waxa kamid ah aad bay horta markuu u badan yihiin filiyo kala duwan way leeyihiin laakiin se qodobka koowaad waa database management-ga loo isticmaalaa badanaa iyadoo marka maxaa la isticmaalayo MySQL Oracle SQL Server oo ay leedahay shirkadda Microsoft web development-ga iyo applications-ka badanaa websites-ka iyo applications-ka waxa loo isticmaalaa SQL si marka loo maamulo xogta dynamic data science-ka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa data science-ka marka waxa la adeegsadaa badanaa SQL queries-ka ayaa la adeegsadaa qodobka xiga ee iyadana aad ka muhiim ah ee loo adeegsado waxa weeye waa business intelligence-ga oo marka reporting-ka la sameeyo tools-ka badanaa la isticmaalo waa Tableau iyo Power BI oo iyaguna badanaa loo isticmaalo data visualization-ka finance-ga iyo bankiga ayaa iyaduna door muhiim ah ay ka qaadataa SQL oo loo isticmaalaa maxaa lagu sameeyaa waxa lagu manage gareeyaa transaction-nada kala duwan iyo financial records-ka qodobka kale ee badanaa loo isticmaalo iyadana waa e-commerce-ka marka iyagu ilaa dhowr waxyaalood baa loo isticmaalaya waa user-ka information-kiisa transaction details-kiisa iyo handles product categorize-ka intaas oo meeloodba wax weeyaan SQL way ka saacidaa marka commerce-ga la joogo